halkan waa degmada Ayl ee gobolka Nugaal waxa sidaa u bidhaamaya beerihii ka faa'iideystay mashruuca sida Restore ee loo sameeyay habka waraabka casriga ah ee beeraha Cabdicasiis oo kamid ah beeraleyda ka faa'iideystay mashruucan ayaa farta ku fiiqaya isbedelka ku yimi beertiisa waxa uu ka waramayaa arrimaha u hirgalay oo horey rafaadka uga haystay laakiin uu ka gudbay kadib fulintii mashruucan oo bulshadu gacan ka geysatay مثلا iskaashiga anaga markii aan dhaqaale iska ururnay oo anagu aan wax bixinay iyo sidoo kale hay'adaha shaqadoon oo kale ay nagu kaaban iyaguna oo nagu bila taareen oo dhaqaale ka noogu dareen arintaas wax weyn bay tartay maxaa yeelay waxa la wax anaga nagu cuslaa bayna la qabteen bilowgii hawshan hay'adaha mashruucan iska kaashanaya waxa ay abaabul iyo dhiirigelin u sameeyeen bulshada deegaanka oo iyaguna la yimi lacagta shaqadan lagu qabtay qaar kamid ah wacyigelin iyo waxaan siinay maaragtay abaabul baan u sameynay community-ga mashruucooduna wuxuu ahaa beero ku yaala xaafadaas daawad oo Somreeb taageerto ayaa wax loo sameeyay in mashruuca loo yaqaan FMNR-ka ama habka waraabka casriga ah community waxa ay la timid 1580 inta kale waxa uu daray mashruuca tallaabadaasi waxa xigtay in bulshada tababar loo sameeyo si kor loogu qaado wacyiga la xiriira iskaashiga iyo wax wada qabsiga waxa la siiyay tababarada waxa la siiyay sida loo beeraha warwarka beeraha abuuritaanka beeraha qaabka contribution loo ururiyo oo ah qaab akoon baan loo furay hay'ado wax loo furay shaqadoon akoonkaas wuxuu ahaa waxaan u tababaray in lacagta lagu shubo si la wada ogyahay dhamaantood guddigu hay'ad og tahay guddi ogyahay qof kasta wuxuu diray og tahay oo daafuran marka laga yimaado tababarka la siiyay guddiga horumarinta iyo dhaqaale ururinta mashruucan sidoo kale waxa aqoontooda dhanka beeraha kor loo qaaday beeraleyda degmada Ayl ee gobolka Nugaal kuwaasi oo intii mashruucu ka fulay tababar loo sameeyay ugu yaraan dhowr tababar baan qaadanay tababaradaas waxa kamid ahaa kuwa FMNR-ka oo kale qaabka looga faa'iideysanayo qaabka loo maareynayo waxa kamid ah tababarada qaabka abuurista beeraha la dagaalanka cayayaanka iyo daaweyntiisa cudurrada ku dhac beeraha iyo waxyaabo la mid ah marka tababaradaasi runtii waa soo noqnoqday dhowr jeer ugu yaraan baan qaadanay tababaradaas beeraha waxaa lagu sameeyay biyagelin casri ah iyada oo la dhex dhigay tuubooyin dalagga waraabinaya oo meel gaar ah laga maamulayo xiridooda iyo furidooda taasi oo ka hawl yar 100% qaabkii hore ee loo waraabin jiray hadda waa abuuran tahay tuubooyinka waa yaaleen dhirtii si fiican bay u baxday si fiican baan uga faa'iideysanay haddana waxaan u baahanahay in naloo siyaadiyo oo waxna nalala qabto sidii hore oo wax noola qabateen ay wax dama noola qabataan xilligan wuu ka hirgalay mashruucii waraabka casriga ah ee beeraha xaafadda daawad ee degmada Ayl gobolka Nugaal dadkuna waxa ay shaqadan fushay ka barteen duruus muhiim ah su'aalaha mashruuc marka hay'adda waxa lagu maalgelin kaliya waxba adigu qabsan ku darsan waxay noqonaysaa marka wax kale ay isku soo iyaga oo taagnaanaysa laakiin tan waxaad ka baranaysaa naftaada wax qabsan kadib oo wax soo ruursan kadib waxa fahmaysaa xoolaha lagu keenay laga soo ruurshay kula mid ah waxba ku dhaamin adiga ilaa marka dadkaaga wax laga soo ruurshay wax ku qabstaan de waxa ayaa laga soo ruurshay dadkeena way muuqdaan soo saasoo kale faa'iidada soo leeyahay inaad wax qabsan kadib bit soo la tahay beerihii tacabku galay waa kuwan dalagooda suuqyada loo daldalayo laakiin wali ma dhowa inta dhereg la gaarayo dadka degmada Aylna waxa ay dalbanayaan in wax lagala qabto inta uu dhiman biyaha waxa ku yar riig bay u baahan kale waxaan u baahanahay green house u baahanahay waxaan u baahanahay tababaradii hore oo kale in la ku soo celiyo waxaan u baahanahay in beeraha gaarkood silig bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin abuurka u baahanahay waxaan u baahanahay waxyaabo badan u baahanahay sir badan baa la soo gadayaa kulli wax laga yaabay xawaayaanin oo sir wada dhacay baa suuqa laga soo iibinaya waxa laga yaabaa beeraha qaybtood ceelashani ku xiyay baa dhaca ka dhaha waxa qaar laga yaabaa beeraha qaar tuubooyinka loo isticmaalayo inay yaryar yihiin oo ay sabihii aad u geen kareen marka baahida waa iska jidhaa